guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Waxaad haysataa awood ah inaad doorato nolol ka sii caafimaadaysan. Taas ayaa sax ah. Isbeddelo yaryar oo aad samayso ayaa saameyn weyn caafimaadkaaga ku samayn karta. Marka koowaad, bay'adaada ayaad wax ka beddeli kartaa. Ka fogow in sigaarka lagugu ag cabo. Haddii xubno qoyska ka mid ah ay cabayaan, weydiiso in bannaanka ama dibadda u baxaan oo aysan guriga dhexdiisa ama baabuurka dhexdiisa aysan ku cabin. Iska xaqiiji in gurigaagu yahay meel carruurta ay ku ammaan qabaan, adiga oo iska xiraya sunta sida walxaha alaabta lagu nadiifiyo iyo daawooyinka. Ku xir sanduuq ilmaha ayna gaari karin. Hoos u dhig halista kuwa waxyeeleyn karta, adiga oo markasta oo aad gasho gaariga dhexdiisa iska xirta suunka gaariga. Oo iska hubi in ilmahaaga aad ku fadhiiso kursiga gaariga ee carruurtu ku fadhiistaan oo ku habboon iyaguna. Tan labaad, waxaad wanaajin kartaa aqoonta dhanka caafimaadkaaga. Aqoonta dhanka caafimaadka micnaheedu waxay tahay sida wanaagsan inaad u fahamsan tahay sida caafimaadkaaga aad u daryeeli lahayd. Waxaa ka mid ah sidaad u fahamsan tahay sida daawada loo qaato, sida daryeel bixiyahaaga caafimaadka loola hadlo, iyo sida loo maareeyo xanuunada joogtada ah. Ka hor inta aad takhtarka aadan u tegin, qoro waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad rabto in takhtarka aad ku dhahdo iyo su'aalo kasta oo aad rabto inaad weydiiso. Ha ka xishoonin in takhtarka ama kalkaalisada aad weydiiso haddii ay jiraan waxyaabo adigu aadan fahmin oo u baahan in lagu kala caddeeyo. Ku soo celi hadalka takhtarka waxay kula tahay inaad maqashay in takhtarku uu yiri. Iska xaqiiji inaad si sax ah u fahamtay. Iska hubi inaad fahamtay sida loo qaato daawada takhtarkaaga uu kuu qoray, oo intii aad awooddo baro wax kasta oo ku saabsan sida loo maareeyo xanuunada joogtada ah sida sokorowga ama dhiig karka. Tan saddexaad, waxaad awoodi kartaa inaad samayso dalabyo habdhaqan oo caafimaadaysan. Jimicsi samee ugu yaraan 30 daqiiqadood maalin kasta. Iska hubi in habeen kasta aad hesho 7 ilaa 8 saacadood oo hurdo ah. Haddii aadan helin hurdo kugu filan, waxaa kugu dhici kara walwal ziyaado ah. Waxaa saameyn kartaa go'aano xunxun. Si sahlan ayay waxyeello kugu soo gaari kartaa. Waxaa dhib kugu noqon kara xusuusta, oo waxaad halis u geli kartaa shilal badan. Maalin kasta cun miro iyo qudaar oo midabyo kala duwan ah. Midab kasta oo miraha iyo qudaarta waxay leeyihiin fitamiino iyo mineraallo u wanaagsan jirkaaga oona cudurrada ka difaaci kara. Caadooyinka xunxunna iska joojiso, sida cabidda sigaarka, cabidda khamriga, ama qaadashada daawooyinka aan ammaanka ahayn. Gacmahaaga markasta ku dhaq saabuun iyo biyo. Qaado tallaabada kaa difaaci doona cudurrada. Takhtarkaaga kala hadal tallaalada adigu kuu wanaagsan inaad qaadato. Maalmahan dadku muddo dheer ayay noolaadaan, xitaa cudurro iyagoo qaba. Naftaada waad ka ilaalin kartaa cudurrada oo nolol caafimaadaysan ayaad ku noolaan kartaa, adiga oo wax ka beddelaya bay'adaada, adiga oo wanaajiya aqoontaada caafimaad, oo aad samayso dalabyo hab nololeed oo caafimaadaysan. Waanu ku caawin karnaa wadajir uga wada shaqaynaynaa
si aan u dhisno qoysas faya qaba iyo adiga oo faya qaba.